حريدان جيل waxa la yiraahdaa farax ama iskaashatada farax geel ka badan 400 oo halaad ayaa la sheegay in xiradan lagu hayo waa meesha caanaha lagu cabo magaalooyin fara badan oo deegaanka khaasatan magaalada Jigjiga ay ka yimaadaan xiradan hadaba waxay kaga duwan tahay dhammaan baxriyihii kale ee geela ee cirifyada adduunyada soo arkay xiradan waxa iska la gabadha loogu magac daray oo farax la yiraahdo iyadana kala sheekaysanayna hadaba geela halkan lagu hayo iyo sida uu yahay iyo beerteeduba waxyaabaha kale ee laga helo waxa la sheegay looda qudheedii inaanay beertani ka madhnayn iyo xagga beerahaba bal hadda farax baan imka la sheekaysanayna waxaan imka soo gaarnay beerta farax cabdiweli bedel farax aad iyo aad baan wada ku salaamaya horta waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waa beertii oo waliba beero fara badan iyo deegaaliyo isna aad u badan ma sha Allah goormaad beertan bilowday walaal hawsheeda 2019 dhawaa way geeli jooga way intee laga imka walaal geeli hadda xirada ku jira waa geeli guga dhalay way laakiin geeli joogaayo waa geeli la 550 ما شاء الله هذا أسعنه هاي وقيل بقولي لا تنهو جوجل عليه واي كريوك الحريسين قيلوا قيب ولا أنت اسكناع ولا شيء وسنا شوكته أنت اسكناع ولا شيء محل وجه دوران أنت جوجل الشيء جوجل هذا إنه قدام به هاي وحرنا كشرتها فرحي قيل أنت نان أقلين waxaan jeclaan lahayn ku weydiiyay dhaqida geela inta badan dumarka Soomaalida lagu maaqoon maxaad ku keentay fikradan والله هرت دمر كسومالي ده رجع سومالي ده دلائي جيل ده كنش هاي ميل قولي ما ينقصه ما ينقود على وي مركا والله وح يقول لي ونينا دقن كأني هراء وقف مية كود على تمانة هاي وي مقالة كود على تمانة جيل ما يعلن لكن أباهي بالها وي جيل وهرية أنا ويا شو كنا نهلك كود قدأ هاي وي مركا marka geel jacayl ba ku jiray Soomaa ma geel jacayl uu igu jiray bal ganacsiga anaga muddo 20 sano aan ganacsi ahaa oo yaro aan 20 jir gaarin baan ganacsi noqday marka bal ganacsiga inaan ku darno xoolaheena gartay qorshahayga kulay qayb ka ahaa gartay geela marka inta dhashay 120 ka adii sheegtay mooyee intii kala xagee joogaan intii kala qaybna way joogtaa xira kale joogaan oo dacaawun bay iman doontaa bal hadaan gudaha gallo oo deegaali ma sha Allah marka daar baba loo dhisay geeliga geltiriba daar baa loo dhisay marka daartan oo kale maxay u taraysaa xiradii waabka ahayd maxay kaga duwantay waxay kaga duwantahay geelan degeel reer guraaca ma aha xiradii waabka ahayd waa xiro u baahan mar walba in laga shaqeeyo geelan qof aan halkan deganayn ba iska laho jigjiga degan 30 kilomitir ka imanaya waa runaa geela waxa la rabaa maadaama halkan joogto ku yahay xira aan kolba burburin in loo sameeyo wadankan uu geelana ku dhaqayo wadan qabow cimilo ahaan geeluna meelaha qabow oo kaga fiican yahay inuu gabaad helo qabow marka sababaha darto inuu geel reegura ahayn geeshanu geel ku dhaqayo inay qabow tahay sababaha geel xirada loogu sameeyo deegaankeeni markii hore ma aha deegaan deegaanku si fiican ugu dhaqmo deegaankan xoolaha waa lagu dhaqdaa xeelad tiradan u badan baa lagu dhaqaninay dadkan waa xoolo dhaqato beeraley weeyaan deegaankan degan reer guuraa ma ah imika waxa kale tooda iyo xoolo yar isku haysta deegaankiina waa ku halka ka muuqda ma sha Allah way ku intee bay jireen neefka ugu badan 5 bilood bishra kuwa 5 bilood waa tay waxa kale la ii sheegay in beertaan ay ku jirtay beeraha kale saddex goor ba geeli la maalaba hadda waa la maalay idinka jooga la maalay ma sha Allah saddex goor ba jigjiga la geeyaa maalintii subaxii baa la geeyaa 2 saac galabnimada waa la geeyaa fiidkii 8 waa la geeyaa
ما شاء الله دي مركا أنا متشكو كل يوم بيدقان ما أنا دقامة كلام قاعدة قاعد دون إن شاء الله أنا نشوف يلا كرجينا نوارنا سمع لنا نجينا نوارنا لكن هذا متشكو ما نعرف ما شاء الله قيل دويت يسوي هذه الدور في عنتك أبارتي دويت كل دبيسي سيدين ساميسي والله وين السامي سعد أبارتي حولها حرد كليه كم هاينا ويسود دقة قيل النجو وي صبحي وبحاوي ماذا هذا مركل على السنة وبحي دورا وي مركا كل الدولة ده نجا عاون يسوي ونسين يسوي هاي نقول يسد أنا كحوق بدن قلنا أنا هذا قلنا هذا أبارت أنا جوان كفي عنها هاي سنة كأبارتي هاي وإنه قلت أنا قلنا وقول علينا هلا كهلا هاي الصوص على دوغ عم سوق يبيو ومركا هذا سودانيس جلاسك دور قليلانا بيرتا كو بيرتا سوما عوس بنو بيران محوك قدوي عوسك كلا متك نو بيران ها كل وعوس كرت حولها لوgu talagalay way عوس أنا كلنا noo been ma waa cawska adduunka xoolaha laga siiyo way wuxuu kaga duwan yahay geelu marka uu keligii la dhaqayo aan caws la siinayn هاي ugu yaraan litir iyo bar caana abu kordhinaya markii aad adigu caws aad beertay aad siisa dararkaas aan u sameeyay way oo aan ugu talagalnay inaan halkaas markaa ka daaqaya halkaas loo saaraa way neefka soo meel kale ku leexan markuu irinta ka soo gal halka tagaya haday maran taxta kor istaagaya way ka waran nolosha geelu sabay tahay marka adigoo kale aad maamulaysid waa wax dhibiya way Soomaalidu taqaanay ma way waa wax aad u dhibiya geela dhaqashadiisu way geelu kaliya wuxuu doonayaa in meel uu wax ku leeyahay uu helayo way geelii hore uu soconayay Soomaha meel kale uu tagayay laakiin reebaduhu way yaqaaneen ceelashii uu ku badnaa iyo deegaanka uu ku badnaa geelu wuu u fakan jiray way marka geelu meel isaga wax lagu siiyo haduu helayo aha nacamti la isu xilqaamayo cawska yar oo afka ku wata iyo ها yar darka ku jiray aan la ay isugu qooflan yihiin هاي annagu 3 sanaan xiradan leenahay wali neef nagama lumin oo lama raadin way wala waxa diga warantaa neefna nagama dib jirin oo durwaama dilin هاي sababta qorraxda dhicin bay xaggan orod ku imanayaan ba geeltiraha ka dambeynaya geela way isagoo in badan sii joogay buu geelkininkii wada imanaya markii aad bilaabaysay maxaa kuugu adkaa maxaa kuugu daraa hawshiisa waxa igu badnaa inaan geela kala aqoon imika ma kala baratay waan gadanay geela markaan way bilaabay way marka inaan hasha caanaha badan iyo hasha kala aqoonin way oo geelu dabeecado badan buu leeyahay way geel markuu dhalay ilmaha diiduu leeyahay way geel markuu riman yahay naasaha afartii naasba aan qabin oo laba cilad ku leh baa laga yaabaa inuu jiro waxaasoo dhan kala garanaya markaad iska iibsan jirto waxay baan qolyo khubaro oo kula taliya jirin way jireen way haddana waxaa laga yaabaa inay qolada aniga ila talinaysay baa inay geela khibrad badan u lahayn هاي markii aanu halkan keennay uu dhalay inay cilado badan ka soo baxeen imika ma kala baratay ها waan kala baran way imika markaa kuma khaldamaysid هاي hataa haddaan maqanahoona markaas meesha lagu iibinayo jooga هاي ninka iibinaya ay garanayeen aanu garanayo marka waan la qabsanay caqabado kale badan muuna lahayn geelay dhaqashadiisu way mar haddii ay isugu qooflan yihiin biyihii iyo baad xera haysato uuna ka fakaraynin oo iridaas u xidhan tahay meeshana wax loogu sameeyay oo cuno iyo biyihii iyo waxa uu ka helayo waxa uu dhibi kale anigu ila dhib yar yahay waa laga yaabaa dadku iska kala duwan marka geela ma inaad sii badisaa baad doonaysaa maadaama saad sheegayso aad ku taamaysay inaad Ethiopia kore iyo Somaliland caanaha gaarsiisay qorshahay waxa weeyaan inaan noqdo gabadh ragga ka geel هاي دايما كابد ka geel badanta ragga badankooda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed shaqaalaha imise qof baa ka shaqeeya beerta dhowr iyo afartan de marka xaggii shaqo abuurkana qayb weyn baad ka geysatay
دولي أفرتن قفوا قيب كامل صدق لعسنا شوكتك تاه مالك كتير قيب بدلي أما يجود أنا يستوي وقف كل الله يعلن ويشرع caanaha intee leeg ba maalintii ka soo baxda beertan إلى أفرت يكونتم ilaa 500 litir إلى أفرت قليل كونتم ما شاء الله هذا مركي قبوق تاينو قيل يريا لقى يابا ها معلمين وداق خيل هذا لقى يابا إلى أفرت قليل كونتم إلى 500 ما شاء الله ما شاء الله اللتر كم حلا سيستا caanaha بقولي كنت ريال oo walaal dollar maxay noqonaysaa markaa waxay noqonaysaa dollar 1.5 waa dollar iyo bad maalin dhawaan Mareykan joogay magaalada Nashville litirkii waxa laga siiyay $25 Australia inta leeg baa lagu iibinayay Holland xerageeda oo ku taalo magaalada Dambosh la yiraahdo iyadana $25 kaas lagu iibinayay euro markaas aad aragtaa in yaani geela dollar iyo barka litirkii la siisanayo adduunyada kale rubuc litirkii uu $25 yahay kulli xaruntan aan hadda anagu joogno ama wadankan aan joogno waa wadanka geela haye inuu jabnaado kulli shay walba meeshu ka soo baxo ama laga leeyahay uu ku jaban yahay inaga hadda maciishada aan ka keeno China iyo Hindiya halka way ku jaban tahay laakiin inaga way nagu qaalisan hay marna ma kuga soo dhacday inaad dabadaha u dhoofin karto kale meelaha caanaha geela laga xiisaynayo meelaha laga aqoon caanaha geela jira laakiin adduunyada imka meelo aan laga xiisayn waaba yaryiinba oo ay Mareykanka dadka Soomaalida ay ku badan yihiin ay kamid tahay waan diinayna insha Allah faa'iidooyin fara badan xagga caafimaadka buu leeyahay baa la yiraahdaa marka adduunyadu saasa aad looga bartay caanihii geela dadka hadda anagu jiga aan geyna dadka caba boqolkiiba 57 caafimaad bay u isticmaalaan lama helo anaga caanaha lagama helo waa la qoraa leys bay leeyihiin intii caanaha la soo lisayo qofku si diiwaan gelinaya dadkaas la diiwaan geliyo dadka ugu faraha badan waa dad caafimaad u isticmaala hilib ahaan marka xeradan hilibkii geela kama soo baxo soo wali kama soo baxo laakiin insha Allah waan ku dari doonaa haddii alla yiraahdo marka nirgiina waxaan u maleeyaa gaajoonayaan oo anigu baba hadal kugu wareeriyay goormaan ku sii daynayna hooyada dir hadda ku sii daynayna haya ka war hayaa in madax fara badan oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku jiro in beertada ay soo booqdeen ra'iisul wasaaruhu markii uu halka yimi maxaa ka wada hadasheen والله horta madax badan oo dawladda deegaanka iyo madax badan oo federaalkuba way soo booqdeen iyagoo marka ay ahayd in deegaanka Soomaalida ay ku cusub tahay xiriir geela lagu dhaqo oo sidoo kale lagu dhaqo ay ku cusub tahay wana soo booqday ra'iisul wasaaruhu halkan noogu yimid kulli waxyaalihii aan iska wareysanay waxa kamid ahaa waxyaalihii igu dhaliyay sababaha inaan geel xareeyo wada halka geela ku dhaqatay waa inaga nal wanaagsan madaxda kale beerta soo booqatay kuwa kamid ah wasaarada federaalka dawladda Soomaaliya federaalka Xamse Cabdi Barre Xamse isna waa yimi soo booqday iyo wafti badan oo la socotayba waa tay marka ayaga daftarkoodu inayna dawladda Soomaaliyadii weynayd geel sidan oo kale loogu xareynin noo sheegay markay halkan yimaadeen walaal Itoobiya xere kale kama jirto sidoo kale ah looda waa lagu dhaqaa Itoobiya looda adib xiriyo badan oo kuwan ka waaweyn oo ka casrisan oo lagu dhaqay baa jira laakiin xere geel kama jirto hadda jiga geelal badan baa ku xareysane in la yar habeeyo baa ka dhimanay laakiin Itoobiyada kormay kama jiro laakiin geel ma lagu dhaqdaa Itoobiyada kore waa lagu dhaqdaa sidoo kale lama dejin hawaan sideen inagu aan dhaqan jiray baa loogu dhaqdaa farxay waxa kale oo la sheegay adiga qudhaadu in aan u yareysan xitaa lisida geela waan wada lisayn hal waa wada geelina Soomaa way hashaasaan rabnaa in aan wada lisno bari hore aniga igu dambeysay inaan geel liso laakiin de waa isku dayay maanta ya hadda way oranayaan geel la muulisin
maanta ay ugu horeysa geel duhur la maalo oo nirgaal lagu sii daayo habeen iyo subax un baynu naqaanay bashiir mursal oo qudhiisu qurbaha aad iyo aad ugu raagay oo muddo inaan shuqul ku ahayn ku maqnaa ayaa maanta xerada noo soo raacay bashiir ka war alaabtan caadi ma wala macaan way lagama sheekay maxay kaga duwan yihiin kuwii magaalada aad ku cabbi jirtay haddaad caana geel ma hesho dhadhanka macaan way waxaa u muddaa in sokor lagu daray هاي malab may cabeen malab ما شاء الله بيه مركا مريق با هوا ريق واي صدح ريق بقى هلكن كقدان وبيرتن وكليه ها بيرتن كليه واي بيه هذا هورا لو غادا لي هلكن ها انت لحدن لو غادا لحدن بقى ugu badan لحدن متر ilaa 5 لحدن متر واي ما يستري مركا جيليني انت بابو باهنا ها انت بيه يلا سوق قفلو iyo geelaas biyahaas soo ma haysto meel la kuma lumayo geel dibkiisa ugu faraha badan inuu warwareego socday ahayd ma ogtahay waa runaa hadda geel isaga halka iska yimaada Cabdisalaano way halka irida walaalo caadiyan marmar buu bil qadi jiray biyaha ka qadi jiray imika intuu ku cabaa saacad buu ku cabaa markuu isagu rabo sidoo bay ahaanayaan biyuhu haay habeenaan xaggan seexday way geel isaga soo kacaya markuu ka dhargan isaga iska fadhiisanaya anagu geel buu soo kaxayno marka ma balaha saddex qad iyo afar qad iyo toddoba qad iyo wixii sheegi jiray waxa ma laha way waa rabitaankiisa uun biyihii uu yaqaanay halkan ku yaalaan hashu markaad naaska la qabtay caanaha laga liso iyadoo ilmaheeda wata iyadoo ilmaheeda ka wada cabaya ma sha Allah marka caanaha aad ka soo dheregtay xerada geela aad ka soo baxdo waxa loogu talagalay halkanna in martidu ay ku yaranastaan walaalo yaa inta badan madaxdu markay soo booqdaan ma halkan ugu talagashay inay ku nastaan halkan ugu talagalay madaxda iyo cidii kale daneynaysa inay halka soo booqatay sida Cabdisalaano kale haay waxaan ugu talagalay qofku intuu socod ku yimaado socod kuma tagi karo way beertana 3 sano un bay jirtaayo mayna wali suurta gelin aan geedihii laga beeray in harsi gaadhaan waxaan ugu talagalay in lagu nasto shaaha lagu cabo caanihi geela qaybta kala hadda marka waa miyi magaalo ma istiri waa miyi magaalo isku jira haay xitaa musqulaha markaad xaggan ka soo baxdo xerada geela haddaad u yara baahato oo kuwii lagu fadhiisanayay ma sha Allah oo tubooyin ku xidhan yihiin oo qofkii rabay inuu habeen iska joogo ku maydhan karo ma sha Allah marka ma ugu tala gashay saasoo kale horta meelo gas house oo kala oo dadku ay joogi karaan wali ma naan sameyn waan sameyn doonaa insha Allah investment-igi baan wali naga dhamaanin geela iyo xariyihiistii iyo wixii uu cuni lahaa waan sameyn doonaa marka ay noo buuxsanto shaqooyinka kale haddii alla yidhaa walaalo aad iyo aad baad u mahadsantay runtii xusuus wanaagsan baanu kala tegaynaa beertaada insha Allah واو اسبوعك في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa